بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. walaalayaal waxaan halkaan ku soo duubaynaa masjid ku yaala magaalada Xiraale ee gobolka Galguduud oo la yiraahdo Masjidul Jabal. masjidkaas mihraamkiisii waa kan saad arkaysaan. mihraamku wuxuu ku la shuban yahay saalootada kale ee masaajidku la socdaa. mihraam weyn weeye oo qol 4 mitir ah uu ka go'an yahay. wakaas meesha angolka oo daaqada geeskeeda uu ka bilowdaa. masaajidka shaqadii way ku socotaa. masaajid weyn weeye waxa weeyaan 26 mitir. waka mihraamku waa kan. halkan waa qayb ka mid ah albaabadiisii. shaqadu hadda waxay ka socotaa gudaha oo lagu wado laba warafiino saalootada kore iyo tiirarkii oo la warafiinaynayo. waa geli doonaa insha Allah. halkan waa mihraamkii masaajidka. masaajid aad u weyn weeye. muddo dheerna shaqadiisu way soo socotay. waxaa muslimiinta laga codsanayaa meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan oo sadaqa jaari ah u noqonaysa ay wax ku darsadaan insha Allah. mawlaana gudiga masaajidka ayaa inoo geyn doona oo masaajidka xogtiisa ay ka warbixin doona. mihraamkii mar labaad ku cesho halkaa ka muuqanaya. weli masaajidka geesihiisaan la wareegaynaa. qaybtaana waa qaybtiisa bariga ah. halkaa waa jaranjaradii ama mataqaanaa meesha dabaqa kore laga fuulo oo qabyo ah oo korka ka furan. insha Allahu dhexdeedaan geli doonaa si toos ah u arki doontaan. halkan waa albaabadii iyo daaqadihii qaybta bariga ah. halkan waa qaybta masaajidka shaqadiisa laga wado. baraagta biyaha loogu shubo masaajidka ayaa ku taala. biyaha lagu shubaa waa laga weysaystaa. masaajidka dhismihiisana biyaha loogu kaydiyaa. shaqada ka socota. halkan waa jaranjaradii. halkan waa qaybta koonfureed ee masaajidka. wajahada koonfureed ee masaajidka geedkaasaa ku yaala oo masaajidka loo beeray. halkan waa ciidii masaajidka loo soo rogay oo shaqada lagu waday. barkadan waa barkadii weysada iyo masaajidka dhismihiisa lagu waday. waxaad arkaysaan gudahaan geli doonaa insha Allah. gudigii baan u tegi doonaa. waxaan soo gaarnay masaajidka gudihiisii. aan soo galnay. qaybtan waa qaybtii jaranjarada. waxaad arkaysaan waa qabyo. halkaana laga galaa. jaranjaradii waa tan. shaqadaa ku socota weli waa qabyo. kor in laga dado oo haddii ilaahay yiraahdo ay laga daboolaa la rabaa mustaqbalka inta aan masaajidka la saarin biyaanada kale. halkan waa jaranjaradii. halkan aga masaajidku leeyahay oo tuubooyin iyo qalabkii korontada yaala. waa jaranjaradii. kor waa fuuli doonaa insha Allah. laakiin hadda shaqada oo ka socota gudaha ayaan u soconnaa. saad arkaysaan masaajidku masaajid weyn weeye. 32 dhanka ballaca wuxuu u yahay 32. dhirkana wuxuu u yahay 26. waa masaajid aad u weyn. waxaa loogu talagalay in aan la dumin
وأن مربى لواسعين وقاضوا خلق فربضان المسلمين فربضان إن كنتوا كتوه إلى أنت متقانا ساكيد هذا والله واسع يا والد دمية لكن أصلا إن شاء الله نال الدمين واسع هي سمك السوق هذا سلام كنت كان يبغى قصوها لكن شغلي صوتها شغلي صوتها فندياشي وصلاحية صلاة تذكره شبين تدي وقسن وشغلي كصوته كم زاج قديه سي شبين تدي ونوتها الله هذا المسائل كل شقين يفلسون في الواحد شغله واسعتها الإسلام يا وضع لا خير هسيه وفي حقه وحنو تجدونه جدي مساجد كذا عنك كوهية وشغلي سوده محرام كهرتي سايا شغله كسقطها محرام كي والأركيسان ومحرام كواكن شغلار كان كسقطها وحال الصلاح يا صالة تذكر مساجدك تيرك ولا صوت صلاحي تيرك ولا صلاح لما انتوت محرامك أشغله هذا كنت مد محرامك واكن كان ميكروفون كي كتابة كوشرتا محرامك واكن وقبي ولي مساجد لما أنا ولا قبياء محرامك والأركيسان محرامك واكن banaankiisa waa soo aragteen gudihiisii weeye shaqadii baa ka socota salaatada ayaa la salaaxayaa waa socotaa shaqadii qaybtaa kalena waa ka socotaa shamiintadii bay wadaan ninkaas waa shaqaalaha masaajidka u shaqaynaya شميتة وقصن وفوسدي بيها أكتاله شميتة لسود أولي ولا صور جميع رياض الصيف شميتة ولا صور أولي إلهي أجل يحسنها كسي أنت كاغب غاضتي ميل في السائل شوفان شغلي وين صوتها شغلي وين صوتها شغلة أو كسوة مساجد كأيا قدر لغة تكنيها سليال بياله تتكذي حوجا استورتوري يكوى قرآن آخر سنة أنت ويتشوغان مساجد كأسوا قبياه بالو انتفاعيا ولو تكنيا وأركيسان gaarnay guddigii masaajidka nooga warbixin lahaa xogtiisa iyo marxaladaha uu soo maray iyo meesha hadda uu marayo baan soo gaarnay